عليكم ساحب يا عاود حنين شيء دونا طبعا كوفي العقد وبدن صومالي سلو تيم ساحب يا دلكي صوماليا ابا ولا دلعاي دغالو لكن مو ogtahay inay jiraan dad Soomaaliyeed ama Soomaali ka soo jeeda oo billionaires ah ama millionaires ah lacag aad u badan haysta qoftan waxa Mo Farah saaxib waa haliyay Soomaaliyeed sida ogtiin buu ku guuleystay 2012kii Olimpikada laga qabanay dalka Ingiriiska magaalada London wuxuu kale ku guuleystay 2016kii Brazil bilado badan oo dahab soo hooyay okay dadkiisa ma qoyn lacagtu ay sax ka badan tahay 25 milyan lacagta wax ma ku helay lacagta ku helay waa athlete sports ku helay qof ay saaxib yar xawaay farmaajo xay Abdullah farmaajo waxa laga yaabaa dad badan idin daawanaya inay saneen farmaajo lacagta xaq keen amal farmaajo saaxib yar lacagtu ay sax ka badan tahay 120 milyan intuu soo gelin madaxtinimada Soomaaliya ayuu lacagtan haystay ganacsi badan uu leeyahay laakiin dalka Soomaaliya dadku waxay sheegaan inuu ilaa guriga Soomaaliya u oolin laakiin ganacsi badan buu ku leeyahay dalka dibadiisa qofkii waxa waay Maxamed Abshir Abdi ninkan wuxuu leeyahay kambaniyal shirkaddan la dhahay Xafuun Fishing am Xafuun Seafood networkiisa ma qoay lacagtaas waxay ka badan tahay 400 milyan lacagta xubkeena wuxuu leeyahay kambaniga ugu weyn ee Soomaaliya oo seafoodka dhoofiya Omar inaad qana laga yaabo Soomaan waa ninka iska leh Xafuun Seafood ganacsiyo badan uu leeyahay dalka dibadiisa uu ku leeyahay waa maalqabeen aad weyn Dr. Ismail Mohamed Dr. Ismail waa ninka iska leh shirkadda World Remit financing company waxa lacagta loo kala diraa sida xawaalad waay wuxuu leeyahay xawaalad wuxuu ku leeyahay dalka Ingiriiska World Remit baa lahaa inta taqaana networkiisa waxa lagu qiyaasaa inuu ka badan yahay lacag dhan 600 milyan oo dollar lacagta xogkeena waa businessman wuxuu kale waa entrepreneur wuxuu kale sameeyaa xawaalado badan buu leeyahay xawaalada weyn waxa World Remit waay oo lacag bay dibadda u kala dhigtay wadamada adduunka qofkan haysa xabiyaal waxa way Aamino Mooge gabadhan waa gabadhii koobaad oo listigeena ka soo muuqata gabadhan waxa la sheegaa inay tahay the most successful woman in Africa waa gabadha ugu maalqabeysan ama ugu lacagta badan Africa waa Soomaali gabadhan Aamino Mooge lacagta ay keenta lacagta waxay leedahay horta shirkadda ugu weyn ee sonkorta ee Africa leedahay waa taqaan Atiak Manufacturing Sugar Company allaha waxay ku tahay dalka Kenya kambariyada kale waaweyn oo sonkorta waxay ku leedahay Tanzania iyo Uganda Soomaaliya sonkorta keenta saaxiib yar Aamino Mooge lacagteeda networkeeda wuxuu ka badan yahay 900 milyan qofka ay waxa waa saaxiib yar Cabdiraxmaan Boode heer Jabuutiyaan laakiin waa nin Soomaali Soomaa ninkan Cabdiraxmaan Boode waa ganacsada Soomaalida ugu weyn wuxuu ku nool yahay dalka United Arab Emirates Dubai uu ku nool yahay ganacsiyada waaweyn wuxuu ku leeyahay Singapore London New York waa businessman weyn Cabdiraxmaan Boode networkiisa waxa lagu qiyaasaa lacag ka badan 960 milyan dabaqyada weyn wuxuu ku leeyahay Singapore Malaysia Dubai aad loo yaqaan New York xitaa ku leeyahay waa heer Jabuutiyaan waa Jabuuti laga yaqaan ninka ugu taajiran waa Jabuuti Cabdirashiid Cali Ducaale waa wiilka Daabshiil aan dhalay waa taqaaniin waa maalqabeen aad u weyn lacagtu haysto meeqa waay lacagtaas waxa ka badan tahay waxa lagu qiyaasaa 1 bilyan oo dollar inay ka badan tahay lacagtu haysto Cabdinaasir Cali waa ninka iska leh shirkaddan Haas Petroleum Cabdinaasir Cali wuxuu leeyahay shirkaddan Haas Petroleum buu leeyahay waxa waaye wuxuu ku dhashay magaalada Garissa hadda wuxuu dhisayaa dabaqa ugu dheer Afrika wuxuu ka dhisayaa Hamilton Tower inaan qashay ma laga yaabaa dabaqa ugu dheer Afrika wuxuu ka dhisayaa Islii Town ka dhisayaa Cabdirashiid Cali businesska wuxuu ka soo bilaabay meel uu ka soo bilaabay wuxuu ka ganacsadaa waa shidaalka ka ganacsadaa petroleumka iyo oilka kaalmaha shidaalka ku yaala badanka Soomaaliya isaga iska leh Cabdinaasir Cali networkiisa waxay ka badan tahay 1.5 bilyan oo dollar qofka labaad Maxamed Saciid Ducaale aka Daabshiil ninka Daabshiil iska leh shirkadda Somtel ninka Daabshiil iska leh lacag sameeyo waay ninka lacagtaas waxay ka badan tahay 2.2 bilyan oo dollar 2 bilyan ka badan buu haystaa shirkadda ninka iska leh shirkadda Daabshiil waaye bangiga ugu weyn Soomaaliya ninka iska leh waaye qofka koobaad Axmed Nuur Jimcaale ninka iska leh shirkadda Hormuud sida la socotay magaalada wuxuu dhisay masaajid weyn buu ka dhisay airportka aan cad international airport Muqdisho waa la socotay masaajidkaas waxa ku baxay lacag ka badan 15 milyan wuxuu leeyahay shirkaddan Hormuud buu leeyahay iyo Salaam Somali Bank okay networkiisa meeqa waay networkiisa waxa lagu qiyaasaa lacag ka badan 2.5 bilyan oo dollar soo wareegay muuqaalkan like noo saar